ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta hortegay baarlamaanka federaalka soomaaliya. ra-iisul wasaaraha ayaa ka warbixiyey waxqabadkii 100 maalmeed ee xukuumaddiisa. ugu horeyn waxaan uga mahadcelinayaa guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada sharafta leh inaad ii ogolaateen in aan idin hor imaado si aan warbixin kooban idinkaga siiyo waxyaabihii ii qabsoomay xukuumadda 100 maalmood ee la soo dhaafay. barnaamijkii ay xukuumaddu u soo bandhigtay golaha shacabka bishii Oktoobar 24keedii 2020 wuxuu saldhig u ahaa qorshe howleedka xukuumadda oo ay soo diyaariyeen golaha wasiirada markii ay waajibaadkoodii guda galeen. barnaamijkii xukuumaddu wuxuu qeexayay arrimaha hortabinta u leh sida dardargelinta doorashooyinka, sugidda amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga doorashooyinka, horumarinta cadaaladda, dhab u heshiisiinta, dowlad wanaagga, la dagaalanka musuqmaasuqa, kobcinta dhaqaalaha, tayeynta adeega bulshada iyo xakameynta masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, ayaxa, abaaraha iyo fatahaadaha. barnaamijkii ay xukuumadda golaha sharafta leh u soo gudbisay wuxuu ku qotomay qorshe 100 maalmood oo hortabin u leh xukuumadda. buugyaradii liidin qaybiyey waxaa lagu soo koobay waxqabadka xukuumadda ee 100 maalmood ee ugu horreeyey. waxaadna ka heli kartaan qoraallo faahfaahsan oo ka hadlaya tallaabooyinka aan qaadnay si looga dhabeeyo higsiga iyo himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. qorshaha 100 maalmood waxa uu ku salaysnaa baahiyaha kala duwan ee ka jira dalka, gaar ahaan waqtiga lagu jiro ee xilli doorasheedka ah, kaasoo u baahan karti iyo dadaal dheeri ah. si loo fududeeyo wada shaqaynta hay'adaha dowladaha iyo la xisaabtankooda, waxay xukuumaddu wasaaradaha u qaybisay 4 tiir oo kala ah: 1. tiirka siyaasadda loo dhan yahay oo ay ku urursan yihiin wasaaradaha halbowlaha u ah taabagelinta hannaanka dowladnimada ee dalka iyo arrimaha siyaasadda. 2. tiirka horumarinta dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin wasaaradaha ku shaqada leh wax soo saarka iyo horumarinta dhaqaalaha. 3. tiirka amniga iyo cadaaladda oo ay hoos yimaadaan wasaaradaha iyo hay'adaha ku shaqada leh ammaanka, cadaaladda. 4. tiirka horumarinta arrimaha bulshada oo ay ku urursan yihiin wasaaradaha bixiya adeegyada bulshada. isla markii ay xukuumaddu howlgashay waxa ay golaha wasiiradu yeesheen banbax 3 maalmood ah oo ay ku qorsheynayeen howlaha la qaban karo 100 maalmood ee ugu horreeya ee ay ku eg tahay maanta oo ay tahay 10 bisha February 2021. si aan u xoojino isla xisaabtanka, daahfurnaanta, maamul wanaagga, waxaan wasiir kasta la galay oo la saxiixday ahdi ay ku jiraan dhammaan howlaha ay ballan qaadeen in ay wasaaradahoodu ku hirgeliyaan 100 maalmood gudahooda. tiir kasta waxa uu u qabsoomay waxa ay ku faahfaahsan yihiin buugyaraha hortiina yaallo oo hore lidinkugu qeybiyay. sidaa darteed ma rabo in aan waqti idinkaga qaado, laakiin waxaan rabaa inaan si kooban ugu bidhaamiyo. 1. tiirka horumarinta dhaqaalaha. horumarka laga gaaray horumarinta dhaqaalaha waxaa ka mid ah xukuumaddu waxay ku guulaysatay kordhinta dakhliga. tusaale, dakhligii ka soo xarooda dekedda Muqdisho wuxuu sare u kacay 30%. 7 milyan 8 milyan ayaa la qaadi jiray, bishii November waxa uu gaaray 12 milyan iyo 600, taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogtayno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada. xukuumaddu waxay dardargelisay nidaam deyn cafiska iyadoo fulisay dhammaan bartilmaamyadeedii looga baahnaa. xukuumaddu waxay dardar gelin ku samaysay horumarinta heshiisyada ganacsiga ee laba dhinaclaha ah, kuwa gobolka Komeesa, heshiiska dalalka Afrika ee ganacsiga xorta ah, iyo kuwa caalamiga ugu horeyso hay'adda ganacsiga adduunka WTO. xukuumaddu waxay xoojisay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho gudaheeda, jidka weyn ee u dhaxeeya Muqdisho Afgooye iyo kuwa kale. tiirka labaad oo ah tiirka horumarinta arrimaha bulshada. xukuumaddu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga aafooyinka. waxyaabaha lagu guuleysana waxaa ka mid ah ka hortagga la tacaalidda iyo
u diyaargarowga masiibooyinka sida caabuqa covid-19 anyaxa abaaraha xoojinta isdhexgalka bulshada nabadda iyo dhab u heshiisiinteeda oo loo marayo horumarinta isboortiga oo u dambeeyay tartankii ciyaaraha ee dowlad goboleedyada iyo nabadeynta beelaha Soomaaliyeed ee colaadda dhex yaaleen dhamaystirka istiraatiijiyada qaran ee shaqo abuurka diyaarinta qorshaha ilaalinta iyo xaqiijinta qoondada haweenka 30% ay ku yeelan doonaan haddii Ilaahay raali ka noqdo baarlamaanka 11aad tiirka amniga iyo cadaaladda wuxuu xoogga saaray hirgelinta qorshaha kala guurka amniga qaratay inta badan wadooyinkii xirnaa ee magaaladan aan ku noolnahay ee Muqdisho taas oo culeys ku ahayd dhaqaalaha iyo isku socodka bulshada caasimadda ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa kaloo kamid ah diyaarinta qorshaha amniga doorashada 2021 xildhibaanada ka hadlayay ra'iisul wasaare Roble dhanka amniga waxa uu yiri waxaan rabaa inaan ku wargeliyo shacabka inay iska xil saaraan oo ilaalinta amniga iyo xasiloonida cidna kama yeelayno inay qalqal geliso amniga sida uu hadalka u dhigay Soomaaliyeed in uu xil naga wada saaran yahay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dalka qofna lagama aqbalayo inuu isku dayo qalqal gelinta amniga iyo deganaanshaha dalka dowladnimadu aan maanta haysanaa waxay noogu fadhidaa qiimo aad u weyn oo aad wada ogsoontihiin waxaana waajib nagu ah in aan wada ilaashano oon ka ilaashano dhammaan cadowga gudaha iyo dibaddaba beentii ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay doorashooyin dalka ka dhaca qaabka ay u dhici karaan xaqiijin lahaa doorashooyin la isku raacsan yahay waxaana geed dheer iyo geed gaaban u fulnay sidii aan waajibka naga saaran u gudan lahayn isla markaana u dhaqangelin lahayn doorashooyin la isla ogol yahay waxaa maragma doonto ah inaan safarro ku tagnay dowlad goboleedyada qaar inta shir oo aan la yeelanay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada siyaasiyiin kale bulshada rayidka ah si aan isugu soo dhaweyno arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka banaanaato awood siino gudiyada doorashada iyo hay'adaha kale ee shaqada ku leh waxaan ku dardaarmayaa isku duubni walaalayaasha Soomaalida iskaashi wada shaqayn wanaagsan ku dardaarmayaa وريا عبد الناصر محمود حاج أحمد عبد الناصر قجوفة دول قاد ميديا فريلانسي جورناليست.